Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. As you know, if you're new here, kindly do subscribe. And if you're from my viewers, I am humble. Thank you so much. So I want to introduce Tuesday short stories, whereby I will be reading short stories and translating them in Somali. It's good to improve in your reading. walaalayaal casharadeena kusoo dhawaada qanaalka waa qanaalkii aa ogeedeen Faadumo Cusmaan maclimad ka ahayd marka waxaan rabaa inaan ii sheego horta su'aalan weydiiyo Ramadaan idinka iyo Ramadaan yaare maalinka afraad baa la jooga alxamdulillah ani si qabow buu igu dhaafay bal idinka kasoo jawaaba marka hana la cibaadeysto marka waxaan rabaa inaan ii sheego Tuesday maalinka Talaadada waxaan ka dhigay maalin oo akhrinayna sheekooyin gaaban sifo Ingiriiskiina si fiican u baratiin akhriska waa aad u muhiim u yahay marka ani af Ingiriis baan ku akhrin doonaa sida caadiga igu taqaanin af Soomaalina waan igu tafsiiri marka casharka aan galno First short story The Eggs ukumihi Have you seen an egg adiga ma aragtay ukun What are eggs for ukumaha maxaa loola taragalay What is the color of eggs? Colorka ukumaha maxay? White, of course. Cadaan ama casaan bila shaki la'aan. But there is more you need to know. Laakiin waxaa jiro waxyaalo qaar oo ku darsanaysid ukumaha wali baranin. Before you read, inta aadan aqrin. Have you seen an egg? Adiga ukun ma aragtay? What is it like? Sidee u taalaa? The eggs. Ukumihi. Eggs come in many sizes. Ukumaha waxay ku imaadaan cabiraad ama taayo kala duwan. Eggs hold some big surprises. Ukumaha waxay haystaan mufaaji'o waaweyn. Speckled. Ayagoo dhibicyo leh. Brown long oo buniga white ayagoo cas or blue ayagoo blue eggs hold babies that are new ukumaha waxaa ku jiro ama haystaan ilmo wada cusub chicks from eggs digaaga yaryar ukumaha ka imaado waxaa waaye jaallo furfursan Chicks from eggs are funny fellows. Digaaga ukumaha ka imaaday waxa waaye cajiib bay leeyihiin. Short story 2. I want a dog. Aniga waxaan rabaa A. Before you read, inta aadan akhrinin. Do you like dogs? Adiga eeyaash ma ka heshaa? Do you like a cat? Or a rat bismillah ma jeceshahay nyaanyuur mise jiir su'aasha koowaad Do you have a pet at home xayawaanka guriga lagu haysto adiga No maya but I want a pet laakiin waa rabaa xayawaanka guriga lagu xanaaneeyo I want a dog baan rabaa I want a pet. Xayawaanka oo guriga lagu haystaan rabaa. It has to be a dog. Inuu noqdaa A. Not a cat. Ma rabo nyaanyuur or a rat. Mise jiir. And not a bat. Mise kibilaay. I like dogs. Aniga waan ka helaa eeyaasha. Get me a dog. Keen A. I want a dog. Waxaan rabaa A. I just want a dog. Waxaan rabaa A. Milk. Caano. I like milk. Aniga waxaan ka helaa caano. Very much aad iyo aad. Every day maalin kasto. My father buys it at the supermarket. Aabahay wuxuu ka soo iibiyaa supermarketka. My father buys it at the supermarket.
I drink milk in the morning. Aniga waxaan cabaa caano subaxiba. I drink milk in the morning. It's white. Wuu cad yahay. It's very important. Aad buu muhiim u yahay for our bones, lafaheena, and teeth iyo ilkaheena. It's very important for our bones and teeth. Susan and the old man. Susan iyo odaygii duqa ahaa. Yesterday, shalay, Susan saw waxay aragtay an old man, nin oday ah, waiting oo sugaya on the pavement, jidka geeskiisi uu sugayay. He can't cross, jidka wuu gudbi waaye, the busy street alone, wuxuu gudbi waaye jidka oo aad mashquul u ahaa keligiis. She helped him, way saacidaysay asaga, to cross inuu gudbo the street jidka. He thanked, wuu ku shukriyay Susan, shukran buu dhahay. She was happy, iyadana aad bay u farxday. My school, skoolkayga. This is my school, kan waa skoolkaygii. It's in London, wuxuu ku yaalaa London. I always walk to my school. Aniga markasto waxaan u socdaa skoolkaygii. I love, waxaan jeclahay my teachers, macallimiintaydii. They are very kind. Aad bay u naxariis badan yihiin. My class, fasalkaygii, is on the second floor. Fasalkaygii wuxuu ku yaalaa dabaqa labaad. I play, waxaan la ciyaaraa with my friends, asxaabtaydii, at break time, waqtiga oo fasax yarna la siiyo.